والصلاة وفضل الله وبالله سبحانه وتعالى وقدرته نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وركا إن القضينا النبي عليه الصلاة والسلام بين جروا صدق حرمات بشكت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كتبها رسول الله واحد أحيا الليل هبين كيسون ورنجر أنا هبين أردن سجيد وقادن جري النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قطبه مروا القرآن أخريه مروا الصلاة وكذا مروا الذكر وضب هبين كاس مسيح جري وأيقظ أهله كيسنا وكعن جري النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحوية قويس كيسا أيوك عن جري سيجب ورقة يبقاتها يعني وحوية والد ذلك ربيت وشد ميزره قلت جيسنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لحظة الحنجر النبي عليه الصلاة والسلام توقع شوية رمضان وطبيه وحين وقناهي توقع وحكم جرى لكن ذلك ليلة القدر وأخبين الله سبحانه وتعالى هذه فضل بدن وسيء وأبيك قراءة السودة شيء إن أنزلناه في ليلة القدر بإذن الله سبحانه وتعالى وحن سودة شيء هبينك قدر مركل إلهي وحلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وحن سودة شيء هبين بركيسا هبين كاسو يفرق كل أمر حكيم أرين كسدا أو محكمة وهبينك إلهي سبحانه وتعالى وسوق بيو ملايكتيس وحل صارا إن أوامر تفليان وإلهي سبحانه وتعالى وسوق بيو وصدق علماء مصيرين تإليهين ورشها وحي سنة كارد حي أردن فإلهي سبحانه وتعالى هبين كاس ملايكته وجود بيها بدنا شقادة سمركا أيام قطع وحيل دمانية وحيل علانية وحيل ندلع سينية وحيل دول خلاص حنون وحول بها يفرق كل أمر حكيم إلى الله سبحانه وتعالى هبين كاس runtii habeen aad u qiimo badan ilaahay wuxuu yiri waa habeen ka khayr badan kun bilood marka la xisaabiyo waa 3 sano cibaadada habeenka gudatay ilaahay ku waafajiya waxay yani waxa way ka khayr badan tahay way la mid tahay ma waxa ka khayr badan tahay 3 sanadood oo aad cibaadaysanayso ka hor imika inaga wax 3 jira ma jira taa maalintan dhalanay ilaa maanta hadeen cibaadun ku jiro halka habeeno ilaahay ku waafajiyo ayaa ka khayr badan jira Allah subhanahu wa ta'ala marka yani waxa weeyaan si habeenka loo raadiyo 10 dambe ku jira ayaa la rabaa inay habeen koowaad ilaa inta ka dhamaanayso aynu baadi goobkooda saasana ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo jeediyay yarkiisa masaajidka ku ixtikaafi jiray qiimada ama uu nabigu ka samaysan jiray calayhi salaatu wasalaam halkaas marka yani waxa weeyaan ku cibaadaysan jiray maadaama yani waxa weeyaan qalbigu uu rabo inuu ilaahay toos ugu xidhnaado oo waxyaabaha adduunyaha soo dhaxgalin qofku inuu gaar noqdo ayuuba qalbigiisa ilaahay ku xidhaysan laakiin markaad suuqa joogto ama aad ehelkaaga la joogto ama aad yani meheradahaaga iyo shaqooyinkaaga gaarkaa joogto laazim waxyaabaha ku soo galay laakiin markaad qiimada masaajidka ku dhex yaalla ku jirto ee aad marna quraan akhriyayso marna dhikri wado marna salaad tukanayso qalbigii toos ku ilaahay u xidhay saas markaa 10ka dambe nabigu uu ixtikaafi jiray calayhi salaatu wasalaam masaajidka isagoo yani waxa weeyaan amaashi kale adduunyada dhan iska xidhay marka inaguna inaan fursadda ka faa'iidaysano loo baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayna waafajiyo ducooyinka soo arooray waxa kamid ah Aisha mari weydiisay nabiga haddii ilaahay habeenka ay waafajiyo maxaan idhahdaa nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam waxa tiraahdaa allahumma innaka cafuun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka cafuun تحب العفو فاعف عني والدعاء هذا كوبا لكن معناه يردن يعني وحوية فإذا يحب صنتهاي أنا شرح إذا كبح قرين يعني إلهي واحد عفس بضن عفس كروات عشاء إلهي يسكك عافي بني آدم باتواد خلطة ميسان هبين هي معلوم بعد قفيسان مركا ده إلههم بردافق سبحانه وتعالى خلطات كأنه قالين مركا انت إلهي ويدي سوري النبي عليه الصلاة والسلام الله ينوافق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه